ورشة سنة كعصب لو طلعت نشنت بدك وحلو قيبيا سدح قيبوت قيب وقيب ورشة سنة كعصب يسمعنا وسمعني وأيامها دن إسكم مدويهين هدو سنة لشة يهدو سنة معنا وح معنا إيش أسكرين قيب طلبات وقيب كم مشغول سنة كيف تجي وحالي أقولي واي كم مرجيسن نيد أي قابلة سنة كعصبنا أنا الله قيب سدحات محاواي وقيب أقبله وحكى الصوت كل عي سنة كده ماضي ونديار جرو سنة كان صوص عده وحي كقدم سي أوسح الهاين ينرش هذا سي ولسان الهاين سدحات قيبات قيب كتاعي mar walba oo sanad cusub noo dhasho waxaan helnaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala siyaa fursad aan ku dhisi karno adduunkeena iyo aakhiradeena aan ku dhisi karno labadeenaba marka mar walba sanad cusub dhasho iyo mar walba bil cusub dhasho waxaa muhiim ah inaan isweydiino saddex su'aalood kow horta qofkee raba inaan noqdo tusaale maxaa qofkee raba inaan noqdo waxaa laga yaabaa sanadkii hadda lagu qaatay afarto dhamaaday in wax badan caqabado badan aan la kulanto tusaale kale waxaa laga yaabaa inuu reer ka burburay waxaa laga yaabaa ganacsi kale inaad ganacsi aan lahayd kale inuu ka dima laga yaabaa waxaa laga yaabaa in lagu khiyaano waxaa laga yaabaa in rajo aan lahayd kale ay baaba'day laakiin sanadkaas wuu tagay wuxuu ahaaba wuu tagay hadda maxaa noo dhashay sanad cusub marka in waxaan sanadkan ku qaabili karnaa koow inaan aqbalno wax walba oo nagu dhacay wixii hore way nagu dhaceen Soomaali waxay tiraahdaa wixii tagay tiigsimaad ma leh marka sanadkan waxa ku inaa sanadka inuu sanadkii ugu fiicnaa ee aan nooleen waxaan ku dhigan karnaa koow inaan dhahno horta meeqa meel aan u baahannahay in aan horumarin ku sameeyno tusaale kale miskidee raba inaan noqdo miskida lagu qulaatay afarta joogtay iyo miskida lagu qulaatay shan joogtay isku miski ma kala noqon macnaha inaan anaga qorsheeno maxaa rabnaa koow sidoo kale waxaa isweydiinayna saddex su'aalood oo muhiim ah su'aasha kood inaan isweydiino naga rabo waxaa waaye maxaa hore u qaban jiray oo hadda aan sii siyaadin doonaa kala kale waxaa hore u qaban jirtaa laga yaabaa in sunooyinka aad ku jirtaa laga yaabaa sunooyinka inaad sii siyaadisid inaad quraan akhrisid quraanka inaad sii siyaadid lambar 2 maxaan qaban jirin ee rabaa inaad qabto waxa laga yaabaa inaadan lacag kaysan jirin oo kale waxa laga yaabaa inaadan quraanka si joogto ah u akhrin jirin waxa laga yaabaa inaad buug aad akhrin jirin macnaha maxaan rabaa hadda inaan wixii horay wixii aan sameyn jiray wixii aan sameyn jirin oo inaan sanadkan aan sameeyo maxaa waaye su'aasha saddexaad isweydiinayna waxaa waaye su'aasha saddexaad isweydiinayna ayadana waxaa waaye maxay tahay wixii hore aan u qaban jiray oo aan rabo inaan maanta nolosheena ka saaro waxa laga yaabaa inaan hore caajis fara badan inay ku jiraan nolosheena waxa laga yaabaa in aanan jimicsan jirin waxa laga yaabaa in caafimaadkeena aan ilaalin jirin wax walba dhafarka wax ka soo caafimaadkeena u aan sameyn jirin marka maxaa rabnaa bish inaan sanadkan aanan sameynin saddexdaas qodobka afraad oo kale aan ka hadalno maxay tahay sanadkan wuu noo dhashay muxuu sanado kale uga bedelaan doonaa in aan qorsheeno iimaan ahaan sidee rabnaa inaan noqono labo sidoo kale xiriirka aan la leenahay qaraabo xiriirka sidee rabtaa inay noqoto haddaa hore u xiriirin jirtay dadka waa fiicanta inaan hore u sii xiriirin haddaadan xiriirin jirin inaan hadda qorsheysto wadaadii qofkaas hebel qof walba inaan maalin xiriiri waa sidoo kale in nolosha nafsadeena maxaan maalgelin maxaan ku sameyn karnaa marka la dhaho maalgelin waxaa nagu soo dhacay ganacsi samaha laakiin maalgelinta nolosheena aan ku sameyn karna waxaa waaye inaan buug akhrino in aan sameyno in xirfad cusub aan barano in dadka wanaagsan aan isku xirno in wax walba oo nolosheeda aan u qalmin aan ka saarno tusaale kale waxaa laga yaabaa inaan ku jirto xiriirkaasna uusan u qalmin noloshaada macnaha mar walba aadan ku haysanin horumar fiican aadan ku haysanin marka xiriir walba oo aan muhiim ku ahayn oo kale inaad ka baxdo kama hadlaayo waxaan ka hadlaaya xiriirada dadka aad la leedahay ee saameynta toban ku leh saameynta ku leh caafimaadkaada maskaxdaada waxaa isweydiinaynaa marka sidee waxaas dhan ugu sameyn karnaa waxaasoo idil qof isbedel rabo sanadka 2025 sidee waxaasoo dhan u sameyn karnaa waxaan u sameyn karnaa inaan horta dhahno isbedelka waxaa la dhahay isbedelka wuxuu imaadaa marka aad ogaato oo aad rabooto in aad isbedel sameeyto markaas uu imaadaa inta ku horeysa ma qofka goormee la daaweeyaa su'aasha weydiinaya qofka waxaa la daaweeyaa markuu xanuunsan yahay oo weli uu og yahay inuu xanuunsan yahay laakiin qofka xanuunsan hadii uusan ogeyn inuu xanuunsan yahay la daaweyn kara maya qofka isbedelka u baahana haduu asaga og yahay haduu asaga ogeyn inuu isbedel u baahan yahay isma bedeli karo marka sanadkan hanoo ahaado sanadkii ugu wanaagsanaa ee la soo maro anagoo kor u qaadayno iimaankeena xiriirka dadka aan la leenahay sida maalgelinta nafteeda maalgelinayno waqtigeena si aan ugu faa'iideysan adduunkeena iyo aakhiradeena si aan u dhisno sidoo kale mararka qaar waxaa dhici karto in ay ku soo wajahaan musiibooyinkana waxaan kaga maangelaynaa
waxaan u kaalmaysanayna xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay عجب الأمر المؤمن عجيب لهاته أمرك أرنك مؤمن قف أرنك مؤمن كحالديسة هدي وحفي عن أركه ومهدنا يا هدي وصوح أذق أركنا وكعس أركنا محكور عايا وصبر عايا مرك إناس صبرك إناس صبرته بحي أودنا أخذنا فرص وحنكسر جبنا يا لبضل كل لبعتن إشنتا ضد بدن بوحي لنوليهين كنا أذق تهي إن أي نولادان مالك تودا معناها مالك حلاقة وذا حتى حلاقة بقى إنا مقالك هدابنيس مقالك هدابنيس إيه مسكح هذا السؤال بدان إيه كتاجنين أما واحد بدنا كل أم تسأله قال بنانك فريدا بنانك مكفريد هوذا بنانك يقرح الصبح إن أنا أركين لكن مشغول أكوتها مسكح كو حكيف كرتا أما قبل هذا قدرتا إن أنا ولاته لحظة وقتي أسألناش بس إن أنا ولاته صوته وحي بحي وحي مستقبل كشلا يدرد وحي يقول عي ما أنت حكم بدريكم سيدو كل واحد سوى صعدنا gacanteeda maanta kuma jiraan laakiin maxaa gacanteeda maanta ku jiro maanta isida aan u maareeyo maanta daqiiqadan aan taaganahay bas inaas u maareeyo saas waxay naga caawinaysaa in gocashada meesha ay ka baxdo dad badanaa waxay u qor xiran yihiin gocasho taariikho hore soo maray ama waxyaalo hore u soo maray ilaa hadda inay gocanayaan go'aan walba ay ku saleynayaan mar walba ay u qor xiran wax walba ay talaabo aysan qaadi karin marka waxaan kuuga talinayaa in guud ahaan aad noloshaada sanadkan aad bedesho aniga adinka inaan bedelo iyo in aan aqbalno wixii hore nagu dhacay wixii hore way nagu dhaceen laakiin hadda now maxaan samayn karnaa waxaan ku soo gabagabeynayaa oraahdii ahayd gurigii kugusi oraahdii uu ahaa abwaanka bigiciisa wuxuu ahaa hoos ugu soo abwaankii saaxiibkiis ahaa abwaan hadaraawi wuxuu yidhi gurigii kugusiyaadaba haddii gabo mooye garaad uusan ku ziyaadin ilaan geed maxaad dhaantaa warade geed maxaad dhaantaa waxba geed ma dhaantid in nolosha waxaa macno u sameeyo sida aan u aqbalno iyo sida talaabooyinka u qaadana 365 bari oo soo socoto wixii aan qaban lahayd inaan hadda diyaarino wixii 365 na dhaafay lagu qaatay afartana in aan dhahno yes waa aqbalna wax kastoo igu dhacay waa aqbalay laakiin hadda maxaan samayn karaa si waxa aan rabo aan u helo waxaan rajeynayaa ugu yaraan in aad wax badan ka faa'iiday niyad fiican u yeelan doonto in aad ku qaabisho sanadkan 2025 oo ka dhigan doonto sanad ka bedelan sanadii hore ee weligaa soo nooleed السلام عليكم waxaan kugu soo dhaweynaynaa sheer xirfad oo ah hoyga barashada xirfadaha casriga sheer xirfad qaybta caafimaadka waxaan kugu diyaariyay koorsooyinka caafimaadka ee aasaasiga sida maternal skills course marxaladaha hooyada caafimaadkeeda lagu socon karo koorsada nafaqada nutritionka jirkeena nafaqooyinka u baahan yahay ku baranayno waxa kale oo kugu diyaariyay emergency care qof hadduu xaalad degdeg ah galo sida uu caawin lahayn iyo barashada daawada pharmacology linkiga hoose ayaa idin soo dhigayaa koorsooyinka